بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم كلنتي wanaagsan kusoo dhawaada barnaamijkan ugu talagalay tartanka koobka adduunka ee kubadda cagta inaanu ku faaqidno barnaamijkani waxa uu si toos ah idinka imanayaa shirkadda internetka ee soo oo iyadu barnaamijkani inta tartanka ciyaaruhu socdo si toos ah halkan ayaan idinku soo gudbin doonaa ciyaaraha kala duwan ee koobka adduunka ka dhacaya sidoo kale shirkadda soo sanadkani waxay ugu talagashay macaamiisheeda kala duwan in ay tartanka kubadda cagta koobka adduunka ay ka daawan karaan abka wadaag iyadoo shirkadu intaasi uga dhigtay inay si lacag la-aana ay ku daawadaan iyagoo isticmaalaya internetka shirkadda soo sidan wada ogsoonahay amaba hore aanu u soo carabaabay tartanka ugu weyn dunidan ay ku noolahay marka la eego kubadda cagta mucaashiqiinta kubadda cagtuna aadka u daawadaan oo sanadkan lagu qabanayo wadamada Mexico Mareykanka iyo Canada ayaa waxay la faaqidi doonaa oo marti oo ah barnaamijka qayb igala ah maxamed sheekh ismaaciil deeg oo ah macalinka xulka gobolka Muruudajeex sidoo kalena ah macalin ku-xigeenka kooxda maaliyadda ee heerka koobaad ee caasimadda Hargeysa Axmed Madar oo isaguna ah macalinka ama macalin ku-xigeenka kooxda gaashaan ee ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee heerka koobaad ee caasimadda Hargeysa macalimiintaas ayaan u soo xulanay in barnaamijka ay qayb nagala noqdaan maadaama ciyaarihii dalka ciyaarihii adduunka labadaba ay wacyigooga ay la socdaan horta ugu horeyn maxamed aamin kusoo dhawow barnaamijka aynu ugu talagalnay tartanka kubadda cagta ee koobka adduunka bismillahi raxmaani raxiim maxamed aad baa mahadsan tahay adiga iyo shirkadda intaadka soo way ka mahadnaqay barnaamijkan ugu taqaadeen waan ku dhownahay axmed madar kusoo dhawow adiguna tartanka iyo barnaamijkeena bismillahi raxmaani raxiim maxamed aad baan ugu dhowahay barnaamijka shirkadda soo iyo maxamed foosiyo maanta hor fadhiya axmed aad baad umahadsantahay aamin aad baad umahadsantahay kulle waxaan gudageli doonaa tartanka koobka adduunka in badan iminkaina daawanaysaa xog badan inaga filayna in tartanka aynu ka siino siduu u qabsoomi doono siduu noqon doono tartankan sidoo kale dunidu waxyaabo badan baa hordhac ka tartanka laga arkayo oo ah in de carqalado yaro badan oo ka yara duwan sanadkii hore markaynu eegano kii qadar lagu qabtay ay sheegayaan qaarkood inuu kani kuugu xumaan noqon doono haddana laga yaabo wax badan oo qarsoon oo ka dambeeya tartanku markuu bilaabmo inuu noqon doono wuxuu kaga duwaya tartamada kale ugu horreyn maxamed aamin waxaan ku weydiinayaa tartankani muxuu kaga duwan yahay tartamadii aan hore usoo daawanay hadday noqoto ciyaaraha hadday noqoto garoomada dhinac kasta tartankani maxaa la rajaynayaa inuu furitaanka uu noqdo maxamed waa mahadsantahay horta tartankani waa tartan ka baaxad weyn tartamadii hore oo dhan waa tartan ay qaarad martigelinayso oo qaaradda North America oo dhan baa martigelinaysa hadday tahay Canada hadday tahay Mexico iyo hadday tahay Mareykanka marka waa tartan meesha lagu ciyaaro tahay aad balaaran tahay 104 ciyaarood ayuu tartanka noqon doonaa oo ka badan ciyaarihii doorka hore qadar lagu ciyaariyay 40 game ka badan tahay intii hore 40 game qadar ahaa imika 104 game 104 game waxay ka dhalanayaan tirada qaramada oo kordhay 1998 ilaa 2022 koobka qadar 20 wadan ba qayb galay koobka adduunka imika 48 wadan ayaa laga dhigay oo wadamadii wala kordhiyay kororka wadamada la kordhiyay wadamada ku faa'iiday oo markii ugu horeysay tartanka ka soo qayb galay 4 wadan baa ku cusub oo koobka adduunka markii koowaad ka qayb galaya Cape Verde Curaçao Jasiirada la yiraahdo wadanka Urdun ee islaamka carbeed ama Jordan taloo garanuga iyo Pakistan wadanka la yiraahdo oo Fabio Cannavaro qaragtaan uu macallin yahay wato waxaa jira ciyaartooyda qaar la oran karo waa kuugu waaya aragsan tartanka intuu socday World Cup kii lixaad ay qayb galayaan laga soo bilaabo 2006 ilaa maanta waa 20 sano 6 World Cup la qabtay ay ka qayb galayaan Cristiano Ronaldo oo Portugal Lionel Messi oo Argentina iyo Ochoa oo ah goolaha Mexico ninkii timaha dheeraa oo goolaha koobka adduunka goolahaas koobka adduunka goolaha la xasuustaa la arkaa marka la arko ugu badan yahay ba la xasuustaa saddexda ciyaartay waa tartankii lixaad ka qayb galayaan xagga wadamada islaamka ama carabta 8 wadan baa ka qayb galay oo markii ugu horeysay barinta la ka qayb galo 4 wadan oo Asia ka socda carabta Asia iyo 4 Afrikaana Masar iyo Tunisia Morocco iyo Algeria oo Afrika ka socda iyo Sacuudiga iyo Qatar iyo Iraq iyo Jordan oo ka socda Asia Afrikaanka laftooda tirada wali noo kordhay markii ugu horeysay 10 wadan oo Afrika ay ka qayb galayaan wadamada waxaa jira wadamada qaar tartanka la iloobay oo muddo dheer ugu dambeysay sidoo tusaale wadanka Norway
waddanka Scotland iyo waddanka Austria saddexdaa waddan 98 baa ugu dambeysay koobka adduunka marka waa waqti aad u dheer ayaa ugu dambeysay marka 28 sano ayay koob adduun wixii labadii kun ka sokeeyay ma soo noqon maba wadamada jiilkii dhashay mabay aragba koob adduun still maanta ninka wuxuu nin weyn noqday isaga waddankiisa koob adduun daawan waxa lagu qabanayaa saddex waddan oo kala gaar ah marka garoomada ku kala qaybsanaan doonaan waa 16 garoon guud ahaan 16 ka garoon 12 garoon ka mid ah oo Mareykanka saddex garoon waa Mexico laba garoonna waa Canada 12 ka garoon ayaa lagu ciyaarayaa marka runtii dadkan soo kabo waa tartan aad uga baaxad weyn tartanada soo baranay watahay anu soo Axmed Madar bal su'aasha aan Maxamed hore weydiinay maan dib ugu celinayaayo xaslada tartankan uu ku cusub yahay ama tartankan kaga duwan yahay tartamadii hore laba qodob baan ka hadlayaa sanadkan aad u xamaasad badnaa oo intaan koobka la gaarin hadalhayntoodu sii jiray dadka qodob waxa weeye qodob ku saabsan kubadda liftirkeeda lagu ciyaaray sanadkan maxay kaga duwan tahay kubaddii hore ee lagu ciyaari jiray koobka adduunka qodobka labaadna waxa weeye qaabka socdaalka iyo ogolaanshaha dalku galka Mareykanka caqabadihii ku keenay iyadoo kubadda cagta lagu yaqaanay dadku isxambaarsan yihiin garsooraha ha noqoto ciyaartoy taageerayaal ha noqoto mar haddii kubadda teamka technical ka shaqeynaya labada qodob baan iminka ka hadli doonaa qodobka koowaad haddaan ka horeeyo qodobka koowaad waxa weeye kubadda lagu ciyaarayo horta aynu taariikhdeeda dib ugu yar noqonay waddan waxaa jiraan koobka adduunka ka qayb gelin laakiin waxa ka qayb galaa kubaddu sameeyaa tagta sanad walba waa waddanka Pakistan la yiraahdo kubadaha lagu ciyaaro shirkadda Adidas la yiraahdo ayuu xirantay oo sameysa shirkadda Adidasna xarun waxay ku leedahay weyn waddanka Pakistan oo kubadaha lagu diyaariyo kubadahan aad aragtaana Jabulaanidii South Africa lagu ciyaaray tii dhawadeedna lagu ciyaari jiray al-rihla la oran jiray lagu ciyaaray Qatar tan imika la yiraahdo Trayonda intaas waxa lagu soo sameeyay Pakistan iyo kuwii ka horeeyayba laakiin kubaddan hadaan dib ugu yar noqono kubadda yar waxa ku jirta sensor baa ku dhex jira sensorkaasi charger buu baahan yahay frequency wuxuu ku tuurayaa 500 hertz halkii minute ayuu ku tuurayaa kamaradahan garoonka ku xiran ayuu communication la sameeyaa kamaradu muuqaalkii bay duubaysaa kubadduna taabashadii bay la wadaagaysaa muuqaalkii deetana waxa u fududaanaysaa qolooyinkii faarka fadhiyay inay kubaddii go'aan ka qaataan khaladaad badan baa berigii hore kubadaha ku dhex jiray waa toddobar baa la sameeyay waata la yidhaahdo Argentine Maradona gacan buu Ingiriiska kaga qaaday oo kale ciyaar weyn bay ahayd taas oo gacanta ka gelinay waxa jirto kale haddii dib u xasuusno champion 4 sano ka hor Real Madrid iyo Chelsea ciyaareen kubad Modric soo korosiiba James soo korosiiba Modric sidii lugta u dhig may taabina way baxday kubaddii corner lagu dhigay corner la soo qaaday oo laga dhigay kubaddan waxay xalin doontaa khaladaadkii berigii hore jiray oo dhan waxaba ugu sii muhiimsanba offside-kii faarta lagu raagi jiray ee dib loo eegi jiray la oran jiray waa offside kubaddaas isla markaaba waxa go'aan laga qaadanaya in kubaddaas offside ahayd iyo inaan ahayn waayo taabashadii kubadda iyo line-kay dhaaftay iyo wixii oo dhanba kubadda diraysa signalka waxa la isticmaalaya AI baa la isticmaalaya kubadda laftigeeda aan ku noqdo kubaddani ma laha tolmo ma laha xabag ma laha markii la sameeyay waxa la sameeyay kubadda waa la kululeeyay kuleyl baa lagu sameeyay kubaddan marka heat waxa lagu sameeyay caaga hoosta kaga jira ay si la isku qabadsiiyo ayaa kuleyl lagu sameeyay waxa la eegay balance-ka bahasha chipka la ilaalinaya waxyaabahaas oo dhan maxamed kubadda waa la charge kareynaya sida mobilada loo charge kareeyo waa chip sida mobilada loo charge kareynaya bartaas la dhigaya markay charge kareysanto match ballkii kaasa loo gelay kubadahan markaa garoonka yaalo oo dhan waa kubada la soo charge gareeyay intee saacadood u shaqeynaya markaa charger weyn oo ogna waa wax dhaca waxa weyn 4 saacadood 4 saacadood 4 saacadood lagu talagalay 2 saacadood kale iyo 3 saacadood 4 saacadood baa lagu talagalay in kubada chargerka shaqeeyo marka waxaan oran karnaa waa kubadii ugu casrisanayd oo garsoorka iyo ciyaarta cidda dhexdhexaadinaysa garab weyn siinaysa haba laga yaabaaba in berigii horta faarta la sameeyay waxa lagu bilaabay koobka adduunka 2018 intii kadib waxay noqotay wax caawisa garsoorayaasha
khaladaad ka yimaadaan laakiin inta badan way caawisaa go'aamada kubaddana waxaa laga yaabaa inay khaladaad badan oo kubadda ka dhex jiraan sidana ay premiershipkii iyo spanishkii iyo talyaaniga horyaaladii ay u gudubto waa sax waxaad ka dhawaajisay immigrationka maxamed qodobka ugu muhiimsan waxa weeye immigrationka qaabka socdaalka sanadkan dalku galka kubaddu waxaan isku ogeynin wax xambaarsan sanadkii hore ee qadar lagu ciyaarayay kubadda dadka qaar baa waxay fiisahoodu ahaa tigirka inaad goosato ciyaar baa tigirkeeda goosanaysaa waddanka saas ku gelaysa ama taageerahow ama ha ahaan haddaad doonaysa xataa dalxiis ahaan u tigir ciyaarta fiisa ku ahaa sanadka laakiin maraykankii wuxuu soo dhigay oo ah waddanka ugu ballaaran ee 11 garoon magaalo iyagaa leh waaba 16 total waxa lagu qabanaya marka 11 iyagaa leh waa meesha ugu ballaaran waddanka ugu weyn tartanka laga qabanaya ayaa wuxuu keenay in caqabado ku yimaadaan dhinaca fiisayaasha dadka la siinayo oo ciyaartooyga qaar in fiisayaashii lagala habsaamo oo kooxdii dhan soo baxaysa ciyaartooyga qaar ka hadhaan sida kabtanka xigeenka waddanka Switzerland nin Embolo la yiraahdo kooxdoodii markii ugu dambeysay kooxdii fiisayaasha loo soo saaray ayuu keligii ka hadhay laba cisho meelahaas ka dambeeyay ku daba tagay markii dambe nin kaloo isna difaac u ahaayo Sakariya la yiraahdo Maroccan ahaa isna ka hadhay xilkiisa mar dambe ku daba tagay qoladaas waa qoladii fiisayaasha Umar Xasan laftarkiisa Umar Arta fiisayaasha ma ahayn isagu wuxuu ahaa qoladii airport-ka timatay waa team kale iyaguna muxuu ahaa airport waa gartay haye waxa kamid ah kuwa airport-ka yimiday garsooraha Umar Artan waxa kamid ahaa kabtankii ama ninka weeraryahanka oo ah xulka Ciraaq Ayman Xuseen la yiraahdo isaguna 7 saacadood ba garoonka lagu haystay oo lagu baariyay waxa kamid ahaa nin photographer ahaa oo Ciraaq la socday isagoo la celiyay oo waxa lagu qabsaday electronic device yar watay ayaa la baaritaan isna 12 saacadood meelaha la haystay ninka marka carqalad weyn ayuu Mareykanku koobka adduunka kaga sameeyay soo galistay waddankiisa dhibta jirta waxay tahay maxamedow Mareykanku marka horeba 40 waddan oo calaamadsanaa soo gelitaankooda marka soo gelitaanku waxa restriction baa ahayd wadamadaas ma bayman karaan Mareykanka 40 ka waddan maadaama koobka adduunka la yimiday waxay sameeyeen in yar bay ka yar dabciyeen waxay dhahdeen wadamadii baanku saarnaa ciyaartooygooda iyo maamulkooda qayb kamid ah waan soo deynina maadaama koobkii imanayaan deetana koobkii ma yimaadeen qaar kamid waa la Iiraan oo kale 15 kamid ah staffkii la socday waa la celiyay caqabadaha qabsaday Iiraan waxa kamid ah fiisihii lagu adkeeyay oo mar dambe la siiyay ayaa waxa u dheerayd in Mexico laga dhigay beeskoodii oo ay degeen Mexico loona qabtay 2 kulan ay ku leeyihiin Mareykanka inay kaga baxaan waddanka 24 saacadood gudahood marka ciyaartooda dhameystaan whistle-ku markuu dhaco ciyaarta la dhameeyo waa baska qaadaya airport-kii tagayaan bartaasi ka boodayaan leexleexasho kale ma jirto caqabadahaas ayaa qayb ka noqday tartankan inta ugu badan dunidana dee ay aad u faaqidayso waxa kaloo aan ku dari lahaa waxa weeye taageerayaashii ayaa markay dalbadaan fiisayaasha qaar baa wadamada qaar baa lacag laga qaadaa iyagoo dalbaday ayaa ogolaanshihii intuu dib uga dhacay haddana la diiday oo lama iman kartaan fiisa lama siinayo lacagtiina laga hayo deetana lacagtii sidii u raadsan lahayn waxa kamid ah Morocco taageerayaasha Moroccanka iyaga laftirkooda caqabad baa haysta qayb kamid ah maaha dhamaantood laakiin qayb kamid ah taageerayaasha xulka Morocco waxa weeye caqabadaas haysta wadamada aynu aragnay airport-ka iyagana lagu dhex lagu qabtay baaritaanka aadka lagu sameeyay waxa kamid ahaa aynu aragnay qosolka ahaa Senegal iyo Pakistan oo diyaaradda hoosteeda inta kuraas loo dhigay lagu baaray oo qaar ba ay baarisay qaar kale waxa loo baaray macadhirkoodii baa si aad loo baaray marka caqabadahaas xagga socdaalka sanadka ku cusbaa aynu oran karana anshaxii sportiska aynu ku naqaanay ka yara leexday fartana waxyaabaha ku guday ee aynu oran karno inuu anta horeba soo sheegay la leeyahay tartankan wuxuu noqon doonaa tartankii ugu xumo marka la arkay hordhiciisii hadhow bal kubadiisii wayna eegi doonaa iyo waxyaabaha uu noqon doona maxamed hore waxaan kasoo wada hadalnay aan aamin kuga soo noqdee tartankan kooxii kusoo kordhay waxyaabihii kale ee sidoo kale ciyaarihii la ciyaari doona inay ka badan yihiin anu weli su-aashiina hore aan ka bixin bal
cimilada ay ciyaartoyga ku ciyaarto hada waxaad ugu sheegtay 3 wadan oo kala fog qaaradii oo qaaradoona Mareykanka laftirkiisu uu yahay Canada qabow lagu yaqaanay Miami iyo meelaha qaar Mareykanka kuleel xad dhaafa Mexico ay ka duwan tahay bal waxyaabaha ku cusub halkaas ciyaartoyga laftirkooda taaban kara iyo tartanka guud ahaanba horta kala duwanaanshaha meelaha lagu kala ciyaarayo waxay qayb ka tahay masaafadii u dhaxaysay maadaama qaarada ku ciyaarayo Mareykanka u dhiisoo kaliya ay isteetada qaarna qabow aad yihiin qaarna kuleel xoog yihiin deedna qarankan ba ciyaartoyga isagoo state degan qabow ayuu ciyaartii wuxuu tagayaa state kor wiil ku dhaaf kaalimtay meel qabow ciyaartiina meel kulul bal tagay qaadkaas amba cagsigeeda isagoo meel kulul degan ay gamekiisina meel qabow ka dhacaya marka dib bay keentay horta xagga cimilada iyo qabsigeeda mid kale jirto safarkan wuxuu keenayaa qofka inuu ku keeno wax la raado jet lag waa maxay saacada biology qofku jirta bini'aadamka waxa ku adjust garaysantahay qofku noloshiisa maalinlaha xilligu seexdo qofku xilligu soo tooso xilligu cuno deedna qofkii tusaale ahaan u bartay inuu 10 habeenimo ama 9 seexdo wanaga aragna qofku xilligu seexdo markii gaaro qofku loonaya hadaba qofkii bal markii 9 ku gaadhay isla seexo ee waad safraysaa ee la geeyo state kale ama wadan kale la geeyo oo saacad ahaan laga yaabo 3 saacadood ama 4 saacadood inuu naga dambeeyo marka qofkii 9kii naftiisa maraysa isla seexo ee wax lagu soo celinayaa 5tii galabnimo ama 6dii ee lagu soo celinayaa deedna wuxuu ku qasbay maadaama ummadii bay soo jeedo inuu hadana 9kii dib u sugo marka tacab farabadan daal farabadan ay ciyaartoyga la kulmaan oo qaab ciyaaroodkoogana wax yeelayaan aad u saameynaysa qodobka immigration ka Axmed ka hadlay hadaan aan ku daro horta Mareykanku wuxuu yar dhaqmaya qaab aanu FIFA waxaan ma aqaanay sharciga gaarka baan ku soconaya marka waxay keentay dad badan oo muhiim ah in dib la gaarsiiyo Axmed sheegay wali waxaan aad uga xumahay Garsar Cumar Artan oo de ummadda af Soomaaliya ku hadasho meel kasta Soomaaliya joogto metelay awal ma faramo ku Olympics ordo qof kasta Soomaaliya ayaa ku faanay Cumar Artan waxa qofna dhamaanteen bulshada af Soomaaliya ku hadasho inuu ku faanino koob adduun Garsar Soomaaliya gaara horana cadeeyay kartidiisa awoodiisa oo ka muuqday koobka Afrika ka muuqday championka Afrika maantana fursad inuu riyaasal ku sareysay gaaro aadna wanaga xunahay laakiin waxaan rajaynaynaa insha Allah sidii isagu maanta uu sheegay in koobka adduunka kan xiga meel Mareykan dhaanto fahansan ciyaaraha fahansan isdhexgalina tahay in fursadu ay ku sinto inuu ka soo muuqdo iyo tartamo kale kuwan ka badan insha Allah aanu rajaynayno waxa jirto kale Mareykan waxyaabaha aad loogu arkayo tartankii bilaabmin baa cabsi fara badan ay jirta oo xagga diyaar garowga qaban qaabo tartanka imika waxa dhacday in qaramada ay joogeen waxa la sameeyay wadanka Japan la dhaaf wuxuu degay Mexico deganaa garoomadii loogu talagalay inuu ka caalamteeyo 2 mar buu ka guuray garoomadii maadaama dhulkii ay ku caalamteynayba aanu dhul sax oo ku fiican ku badiyaan waxa shulka Ingiriiska Mareykanku degay waxa la leeyahay Thomas Tuchel wuxuu cabasho ka qaba dhulkan lagu ciyaarayo oo ku badi falsafadii systemka teamkiisa uu soo talagalay inuu ciyaaraan waxaan saamaxin ba dhulkii lagu ciyaariyay marka inuu dib u eego qaabkii uu ciyaariyay ay keenaysaa wadanka Switzerland meesha ay deganayeen masas baa lagu sheegay oo cabsi badan keentay xulka Ingiriisku goobtan ku tababartaan rabash baa kaaga dhacay waa isku xabadiyay marka xaqii diyaarinta tartanka ayay wax far badan ay jirtaa wadamada qaar baa aad loo dhibaya imika maadada waddanka Pakistan la raado ciyaar saaxtimo ciyaareen waa la iska leemid waddanka ma soo gashay ma soo galay saaxtimo ciyaareen iyagu saaxtimo ciyaare ayaa hadana wax la gaarsiiyay heer alaabtoodii ay lagu baaro iyo daroogo meeysan ganacsi kale mid wadin waa ciyaartoy kana faara ayaa tabaro wuxuu wali ma arag buu xasaa ku badan ciyaari ku dad salo baarayo wali ma arag marka qalafsanaan fara badan ay ka muuqdo oo marka loo eego Sooriyadii qadar ay dadka Sooriyeynaysa marti qaadisay mid aad uga qalafsan ay muuqata cagsigeedii waa muuqata $600 dadku waxay arkayaan qiimihii ugu sareeyay ciyaar lagu daawan karo sanadkan waxa weeye tigidhadii ilaa $900 ilaa $1,000 buu gaarayaa group stage kuwa qaaligi marka group stage laga baxo $1,300 ilaa $1,400 bay gaarayaan knockout waxa yimid finalki maxamed finalku waa waxa ilaa imika xeerlaalayaal Mareykanka ka qeyliyay oo FIFA xataa ku eedeeyay inay sameeyeen istabamarino xagga tigirka
waxa weeye waxa ku bilaabmay $6,700 in finalka lagu geliyo ciyaarta finalka 6,000 ha ayuu ku bilaabmay markii hore bishii afraad ee dhaweyd wuxuu gaaray 10,900 qiimo aad ugu badnaa ha iminka intuu maray maxamed ma rumaysanaysa haddaan ku sheego waxa weeyaan 30,000 ilaa $32,000 halka tigidh ee lagu geliyo ciyaarta finalka halkii marka ninkii iyo guriba halkeena dhistaa guriba dhis halkeena hal tigidh oo ciyaar 90 marka de $32,000 tigidhka ah waa wax aad looga yaabo dad badan geli kari maayaan dad aan ahayn dee Mareykanka dadka wadanka degan maayaan arrinta ku daray Trump u dhiisa inta adeegay oo inuu lacagta laga rukuma bixiyaan ciyaar aan ka daawanay kursi waliba ka fog garoonka oo waliba kuraasi ku foga in lacagta la ku bixiyo macquul caqliga u gelisa isagoo madaxweyne ganacsadana ah tahay kali inta ka sii socono sanad walba waxaan ognahay amaba tartan walba haddii horyaal noqoto dunida tatawur bay sameynaysaa iyo khaladaad baa laga barta horyaalada socday iyo tartamada kala duwanba iyo sidoo kaleba shuruuco badan waxaa jira ciyaaraha lagu soo kordhiyay hadday noqoto ciyaarta dhexdeeda iyo ciyaartu siday u dhacaysa iyo labadaba ay noqoto sanadkan dhanka markaan eegno technical ciyaareed dhinac shuruuc ahaaneed si guud aan isugu soo wada qaado tartankani muxuu kaga duwanaan karaa tartamadii hore hadday noqoto dhankii ciyaaraha aan hore usoo sheegnay amin in iyaga laftirkooga ay kordheen hadday noqoto sida la isku reebiyo ciddii isku dhibca noqoto tartankani isagu siduu u shaqeynayaa waay dhanka shuruudaha waa anigii soo sheegay in la kordhiyey qaramadii ciyaariyey maadaama 48 wadan ay noqdeen tiradii guruubadina way farabateen waxa lagu qaybiyay 12 guruub oo noqonaya midkiiba afar wadan oo noqonayo ee lagu qaybiyay marka 12 guruub qorshe wuxuu yahay guruub kasta labada kooxood u sareeya inay soo gudbaan deedna halka 40 wadan ay noqoto 40 wadan waxa la soo raacay oo iyaguna la soo gudbi doona kaalmihii saddexaad 8 wadan ugu fiicnaa marka 12 guruub oo min koox ay kana saddexaad gashay 12 koox afar baa la reebi doona 8 ugu fiicnaa ay 40 wani ku soo biiri doona deedna 12 wadan baa soo gudbi doona waana markii ugu horeysay tartanka koobka adduunka uu yeesho wareega 12 koobka adduunka wuxuu lahaa wareega 16 unbaa loo gudbi jiray marka laga baxo group stage marka laakiin wareega 12 soo kordhay waxayna keenaysaa taasi sidii marka hore aan soo sheegay in wadanka koobka maanta qaadaya awal wax ku qaadanaysa 7 game badiyo imka laakiin 8 game maadaama wareega 12 soo kordhay ay keeni doontaa wadamada hadaba kaalmaha 8aad ajastada wadanka kan saddexaad galay maxaa lagu soo saari doonaa iyaga iyo kuwa kale wanito kala galay liftooda maxaa lagu kala saari doonaa shuruudaha badankoodu waa iska sidii hore wax lagu kala saari doonaa kooxaha wax la eegi doonaa horta yaa dhibco badan helay marka dhibco badnidii kooxdii kan saddex dhibcood ku gashay iyo tii 4 dhibcood soo gashay markasta tii dhibcaha badneed ay soo gudbaysaa wadamada haddii jiraan wadamo isku dhibco noqday wax la eegay goal difference imse goal bay dhaliyeen imse laga dhaliyay haddii isku mid noqdaan wax la eegay xagga weerarka laga doonayo imse goal bay dhaliyay koox haddii adkaato waa laga sii gudbiyaa wareegaas waxa loo gudbiyaa xagga fair play oo xasuusano Senegal in hadda ka hor fair play ka lagu ka soo hadhay marka kaarkii si loo xisaabinayo miisaan kaarku muxuu noqonayaa haddaan si degdeg u sheego team kasta waxa la xisaabin doonaa kaarka haystaan ciyaartoy walba huruud haysta -1 ayaa loo qoray record ah ka laba huruudood qaatay ay axsan isugu bedesho -3 ee loo qori doonaa qofka casaan toos la siiyay oo bilaadiniina -4 baa loo qori doonaa ka isagoo xabad huruud haysta foul adag sameey casaan toos la siiyay -5 baa la siin doonaa marka waxa isku geen doona dhibcahaas tina teamka minus ka badan leh ayaa hadda doona kala soo gudbi doona doorkan waxyaabaha si xiisaha leh way dhici kartaa sharciga ma qoriyo wax walba la sii fishaa waxa la isweydiiyay haddii xataa inta ay isku mid ka noqdaan hal lagu kala baxaya waxa la isla galay kala sarreyntii FIFA ee qaramada oo FIFA si bilaa soo saarto qaramada si kala sarreeyaan kala awood badan marka maanta salaha haddii wadamada xagga sare ku jira imka Spanish iyo Francisco kale wani tubi kala jiraan hadduu mid iyaga kamid uu la dhibcan noqdo oo waxaan isku mid ka noqdaan wadamada Afrika wadamada Asia kamid aba kuwa Europe meelaha dhex ku jira wuxuu kaga soo gudbi doonaa kala sarreyntii FIFA wuxuu sanadka dhan soo shaqaystay Ahmed sida uu aamin ba sheegay markaan u noqono sanad walba shuruuc cusub ee FIFA ay soo kordhisaa sanadkan World Cup kan koobka adduunka shuruudaha taabanaya ciyaarta maxaa kamid ah ay soo kordhisay
maxamedow haddaan soo koobo waxaa lagu soo kordhiyey dhowr shuruuc oo ciyaarta gudaheeda tusaale ahaan oo kale kaarhka huruudda ee labaad marka koowaad baxo ka labaad ee ciyaartooyga la siiya casaan buu isku bedelaa berigii hore garsooraha ma goon ka qaadan jiray hadda faartaa loo noqonayaa faartaa soo eegeysa hadday sax ahaydna sax buu ku baxayaa haddii khalad loogu siiyeyna ciyaartooyga waa laga celinaya kaarka talabaad si loo yareeyo waqtigii adir timeka ee ciyaarta lagu darayay ayaa waxa la sameeyey waxa lasoo koobay laagitaanka kubadda goolkii gooladuu soo laagayay 5 second baa laga dhigo garsooraha qabanaya tvgana waa laga soo saaraya haddii loo baahdo markaa 5 second waa inuu gooladahaasi kubadda ku laadaa hadduu ku laadi waayo corner lagu dhigaya sidii tii berigii dhoweed gacanta markuu ku haysto taasi waa qodob ciyaartooyga garoonka ku dhex dhaca ee weliba istuura si waqtiga u rido isagana waxaa loo qabanayaa 5 second waa inuu ku kacaa hadduu ku kici waayo oo dhakhtar u baahdo banaanka tago 1 daqiiqo maqnaanaya banaanka hadduu mar banaanka u buxu dhaawacaa uu fadhiyo 1 daqiiqo maqnaanaya waxaan serious ahayn oo ninka kaar casaan lagu siin ama hurud lagu siin taasi waa mid taasi waa tii qodobka saddexaad waxaa kaloo jira bedelka ciyaartooyga marka la bedelayo ayaa waxaa loo ogolaya inuu 10 second garoonka kaga baxo si ciyaartooy kale hadduu 10 second ka habsaamo waqtiga rido ciyaartooyga soo galayay 1 minute kusina banaanka joogaya marka aad waxa loo ilaaliyay waqtigaas garoonka gudihiisa lagu ciyaaro koornaha xabadaan ku daro koornaha kale hadduu si khalad u dhaco oo kooxdii aan koorna lahayn koorna loo dhigo iyadana faarta la soo eegaya markaasaa la odhanayaa koornahaasi koorna mahane goolka ka bilaaba baasha boko xaraamtii Arsenal iyo Atletico Madrid baa aad loo soo daawaday waan sidoo tartanka isaga laftarkiisa dib loo waxay aad uga anfacaysaa tartanka laftiisa imika timekii lumi jiray ciyaarta ee faraha badnaa ayaa meesha ka baxaya imika aan sidoo mara shuruucda horyaalkiina aad ugu fiicnaayeen bo timekii inta koox gool ka dhaliso labadii mirba ciyaartii waa jiibsanaya waxa loo dalinayaa waxay tahay xamaasadda ciyaarta inaan lumin qofkii taageeraha markuu ciyaarta wada hadduu arko kolba iyadoo la jiifo wuxuu soo moor iskaga jeesto dadna xamaasadda inaan kala go'in ayaa teembado aanay hoos u dhicin ciyaarta soo socoto kubadda xumeedna meesha ay ka sii baxdo waa tahay kale gabagabadii barnaamijkeenu ku dhownahay aynu sii socon doonaa waxaanu yara eegi doonaa yara taaban doonaa intaynaan barnaamijka ayna dhammaanin wareegga koobaad kulamada la ciyaari doono ugu adkaan karaa maadaama 12 group oo yihiin waxaynu caawa aynu xusi karnaayo gruubyadaasi ugu adag aynu bilownaayo waxa ugu muhiimsan horta kulanka furitaanka wadanka Mexico iyo wadanka South Africa lagu furi doonaa waxaana lagu ciyaaraya Mexico lagu ciyaari doonaa waana markii labadan wadan ay ciyaaraan furitaanka sanadka 2010kii South Africa lagu dhigay koobka adduunka furitaankii South Africa iyo Mexico ayaa wada ciyaaray wadanka Mexico qudhiis waa wadan ciyaarta halka ku dhamaanaysay la shabalala goolka waxa dhanka kale jirta wadanka Mexico waxaan oran karaa waa wadan nasiib u laba inta badan tartanka furitaankiisa imika tartanka la ciyaaray waa kii 3-aad koobka adduunka 3 mar buu martigeliyay furitaanka isaga lahaa 3 maroo kalena muu martigelin laakiin nasiib wuxuu siiyay wadamo martigelinay inuu la ciyaaro marka 6 jeer bay Mexico ciyaaraysaa kulanka furitaanka adduunka marka ciyaarta xasan karo waa ciyaar isku dhadhow walow xagga taageerada iyo garoonka lagu ciyaarayo ay caawinayso Mexico laakiin waxaan isleeyahay waa ciyaar isku dhadhow ciyaartaas ciyaaran barbar ku dhamaan kartaa sidii tii hore 2010 kale hal barbar ku dhamaan kartaa in taageerada iyo xamaasadda intay awood ku yeeshaan Mexico badasana oo macquul waxaa jira kulan kale oo aad muhiim oo wadamada Brazil iyo Morocco ay wada yeelan doonaan Brazil iyo Morocco-na imika 10 sano ka hor haddii la Brazil Morocco wada ciyaare cidna isma weydiisan ciyaartaas qof kasta wuxuu suuraysanayay inay ciyaartaas Brazil imse ku badinaysaa tiradu bal si weydiinaa laakiin Morocco xul fiican bay soo dhisteen koobka final maadeen oo weliba qaadistiisii ay dacwad u socotaayo in koobkii la siiyo ay dacwad ugu jiraan kii adduunka kan ka horeeyay waxay maadeen afar dhamaadkii maadeen markuu Axmed Mudarna waa yaro iloobay in wixii laga bartay koobka Afrika shuruucda waxa kamid ah kooxaday baxdayna dhibcaha luminayso
marka halka kan kale halkan ay kaga jirto dacwad uga socoto koobkan uu ku jirta haday koox xanaaqday garoonka shuruucda laftarkeedu waxa weeye ciyaartooyga baxay casaan buu qaadanaya ninka afka gacanta saaray ee ninka caaya casaan buu qaadanaya shuruucahan ma taqaana tartanka inta badan shuruucuhu waxay ku yimaadaan munaasabado iyaga iyo tartan munaasabado ku yimaadaan tan imka Afrika final ka dhacday South Africa ka dhacday Senegal iyo Morocco waa tan keentay maanta ciyaartooy liis ka baxay xanaaq u baxa in nacsan la siiyo bari hore 2010kii Jarmalka Ingiriiska wada ciyaaray wakiil Frank Lampard ku gooliyay ay link dhaaftay ay soo noqotay watiilada way socotay ciyaarto iyadoo laba hal mar soo goolkaas uu bareej ka dhigay ciyaarta wax maxaa ka dhashay taa goal technology marka door walba wax khalad ka dhacay toddobarka noqonaya ka dhaxlay Brazil iyo Morocco marka hadan soo noqdo Brazil Morocco isbedelka xooggan bikantay door ku dumisay semifinal between Brazil Morocco taariikhda waxa la sheegay laba mar kaliya kulmeen hal mar oo koobka adduunka 98 ah group stage-ka saddex gool ee Brazil ku badisay markaas imika dhawaantan dambe loo kustaxlaatan mar saxtan oo ciyaareen Morocco badisay 2 gool marka waa ciyaar maanta Morocco lama dheersan karo waa wadamada Afrika ugu xoogan Carabtana ugu xoogan ba kala sareynta FIFA wax ku jiraan kaanta toddobaad ay Morocco fadhida marka runtii waa ciyaar aad isugu dhadhow hadaan waa aragnimada Brazil koobka adduunka ay u leedahay ilaa hadda waxa shaqeynaysa koobkan imse jarbaad soo ciyaartay imse jarbaad qaaday khibradina shaqeynaysa Ancelotti iyo tababarihi odayween ku dhamaan kartaa ciyaartaas waxaan isleeyahay inay baraaj ku dhamaato haddii kalena waa aragnimada Brazil waliba ciyaartooyda shakhsigeeda isbedelka sameyn karayaan Vinicius oo kale maanta Rafinha oo kale in difference shakhsi uu sameeyo inuu kala badiyo ay dhici karto haddii kalena ciyaartooyda barbar ku dhamaato ay badantay Axmed maxaad haysaa kulamada ugu adag ee laftarkooda anagu waxaan hayaa Faransiiska iyo Senegal Senegal iyo Faransiiska xasuusta koobkii 2002 ciyaartii iyagu waliba World Cup Faransiis ay seelayeen ciyaartii furitaanka oo ay ciyaartoodii koowaad wada bilaabeen Faransiiskooda koobka adduunka haystay iyo Senegal oo koobka ku cusbay walaal jiilkooda ugu horeeyay baa markaa ciyaaray Faransiiska World Cup Euro soo raacsaday iyo labada koox iyo fiyo yimaadeen niman la garanin maanta Faransiiska laga bidiyay inkastoo sidaan ka maqnaa ciyaarta marka tiiba haddana imka soo noqotay oo ciyaartii koowaad haddana ay wada ciyaarayaan Senegal laftirka sanadkan lama dheersan karo oo sida sheegayso koobka Afrikana iyaguna dacwad ku jiraan qaadayba inuu dacway marka Senegal koobka haystay Faransiiska imka kooxaha loo saadaalinay koobka kamid waliba Senegal laftirka waxyaabaha la sheego waxa kamid ah in kooxaha squad-ka ugu daada yar leh tiimada xoogan bay wataan mid kale oo jirto Senegal lafteedu maandhood Faransiiska wuxuu la ciyaaray ciyaarta wuxuu la ciyaaray Afrikos baa ka badisay Faransiiska 2 gool marka wixii keenay kataada Senegal istiraado war miya ka liidataan nimankan Afrikos mar adigu nimankan bay lagdeen inuu lagdi ka Faransiiska wata Axmed Raalho ka dhax galeeyay marka ciyaartaas ciyaar adag marka ciyaartaas saadaashiida hadaan islaahdo labada kooxood maadaama taariikhdii horena ay dhex taalo waxa isla Faransiiska Arsenal tiim adag buu soo galiyay weerarkiisa Faransiiska sanadkan lama qaban karo imse salaad ku dhamaan kartaa labiyeber haye ciyaaraha kale adag waxa kamid ah Ingiriiska iyo Croatia labada wadan taariikh ba dhex taala waxa weeye marka laga yimaado ay kulamada ciyaareen oo 12 ciyaarood oo Ingiriiska haba badiyo 6 kulan ka badiyay qoladan kale waxa ka badisay 3 jeer oo kaliya saddexda waxa kamid ah 3 tayale laba kulan oo taariikhda galay ku jira koobkii Euro 2008 kulankii ugu dambeeyay rajada Ingiriiska ku xirnayd Croatia ka badisay tartankii mu soo galin sanadka Ingiriiska 2018 semifinalki waxa isku soo baxay Croatia iyo alla maxay sii caayeen walibana Ingiriiska iyagoo isla argoos oo isla tii ka soo jarta oo loogu daray saxaafadda Ingiriiska aad bay ciyaarta imika ciyaartan ay wada ciyaarayaan wax bal leeyahay waa ciyaarta budhiga oo ah groupka yawanka ku baxaya marka labada ciyaartooda waa ciyaarada muhiim ah sanadka imisa ku dhamaas ciyaartaas marka Croatia loo eego dadkii ka gaboobeen Modric iyo odayaal wata Ingiriiska 2 gool ku badin kara halka aan ku daray ciyaarta Ingiriiska iyo Croatia waliba gaar ahaan 2018 ciyaarta waan xasuustaayo Ingiriiska group stage-ki isreebka isagu hadduu badiyo soo baxaya Croatia oo reer way baxaya haddii laga badiyo haddii badiso haddii barso intaba
way baxday ingiriiska markaa waxay isku rajaxinaayeen ruushkii waa badiyey wuxuu sugayaa in ingiriiska looga badiyo si uu soo gudbo marka Croatia iyadoo gameka maanta Hargeysa markay jirtay waxa la oranayaa inuu kulli meeba socotaan kulli waa soo baxdeen maxaad ka fiicnaysaan laakiin Croatia iyadoo hadii laga badiyo hadii ka soo baxday haddana ciyaar raganimo la ciyaar ingiriisku laba gool laga horeeyay oo labadii goolba keenay haddana dhamaad loo sadeexay marka waxay cashar u tahay ciyaaraheenan marka la soo gaaro weegiga dambeeya la oranayo waxa weey teamkaas caadi mu ciyaarin iyo teamkaas uu siidaya la oranayo aynu baahan inta cashar ka barno ciyaarana oo kala inaan ciyaareen lagu dabo qof aanu isdhigana awoodiisa ugu dambeeyo qof awoodiisa ku ciyaara aanu iiga qofka kale amba kooxda kale amba kale stage ku jiro waa tahay aad baad mahadsan tahay gabagabadii barnaamijkeenu joognaa waynu soo gabagabeynayna mar haddaynu ku jirno falaaqeyn saadaalka ma maaranta laba macallin baad tihiin ciyaaraha Somaliland aad u garanaya ciyaaraha adduunka la socda wixii garanaya haddana inagoo sidaas taageerayaal baynu kala nahay kooxo kala duwan wadamo kala duwan oo asleeday xulka adoo arkay awoodiisa waxay ku soo galayaan amin balawn ugu horeysay yad isleedahay sanadkan way qaadi karaan ama waa taageero u noqon kartaa tartanka socda hasta labadan kala qaad midna waa waxa rajaynaya anu midna waa waxa saadash dhabtay wada rajaynta 10 wadan Afrika ka socda maadaama Afrikaan inay inta meel fiican gaaraan koobka qaadaan aynu rajaynaa dhanka kale sidoo wadano Caraba maadaama Carab inuu tiriyana sidoo wadano Carab inuu ku jira oo Islaam inay sideedaasna koobka qaadaan waa tanid jalaan laha markan tawaa qaco maado aan horta taageero xulka Talyaaniga ayaan taageero wahay 3 sano nimka koob adduunka soo qayb galin adna wallah maqantay laakiin wadamada imika ciyaaraya tartanka wadankan sideeta ku guuleysan kara waxa wadanka Faransiiska kii horena waayo sabab maxay tahay 2022 final bi madino deer Korea laga qaaday sidqiya kii ka horeeyay 2018 waa ku qaaday macallinkii inta joogay Dishamuri uu jooga ciyaartoydii waxa ka baxay weejiri wax badan baa jooga xulkii wadantii seeskiya intii baxday ee ka fariistay kubadda amba weynaataan ba dhaawactana in ka fiican ayay midowga weerarkii maanta imka square-ka waxa weey Faransiiska waliba gaar ahaan weerarka meel aad doorato maanta qaranka la ciyaarana haday ku raadaan doorta saddexdana ciyaaraya saddexdii garoonka gala waa saddex burinaya haddu meeshana maadaama ay kulushay cimilada kulushay dadkii daalayaan square xooggan bay haystaan hadii afarta ciyaar ay daalaan afarta laga soo afar kale qabo wax ku fadhiyay in la soo galiyo marka macallinka muddo badan haystay systemkiisu ma bedelo tisha 4-2-3-1 ku ciyaara marka xataa ciyaartooyga waa qaybay wixii laga doonayay naskii iyo gabayga laga rabay ay qaybeen ba marka waxaan sidii wadanka Faransiiska ugu dhow Maxamed anoo ka fikir doonay marka loo eego jiilkan dahabiga ee xulka Portugiiska wataan anigu waxaan wataa xulka Portugiiska islaahay way qaadi karaan marka laga yimaado taageeranimo iyo waxaan u aanaynayaa waxa weeye jiil dahabiya ay meesha isku yimid oo dhaxda ha u bataan ciyaartoy fiican baa meesha jooga hal qodob ma nimanka xadidi kara tababarahooda doorkan ku cusub in Belgium wadin jiray inuu ka xulashada ciyaartoyga uu ku qaqabo taasoo ku haboonaa meesha keeni waayo laakiin sida kale team aad u fiican wataan oo meel fiican gaari kara koobkan la saadan kara watay wada qodobka uu sheegay tababaraha horta qodobka Portugiisku waa qaran fiican tartamaya laakiin qodobka macallinku qodobka ugu daran ninka Martinez waa ninka loo aaneeyo Belgium intii ugu fiicneed ee soo martay taariikh Belgium waa ninkii khasaari meel ay gaadheen intii teamkii ugu fiicnaa uu haystay Belgium waqtigooda teamka ku dul dhamaaday iminka dad Portugiis oo jiil fiican haysto hadana helay qoleen qaab daacad waxa ninkan malaha wakiilkiisa wakiil fiican buu haystaayo kolba wadanka ugu way jiilka fiican lagu lacag fiican leh baa loo soo dhameeyaa watahay Aamin Sheekh Ismaaciil Deeg iyo Axmed Madar aad baad u mahadsantihiin waqtigiina qaaliga aadna siiseen macallimiin waxba ku cilimaya la wada garanaya bahda sportska Somaliland iyo cid walibana ay garanaysaa tihiin aad baad ugu mahadsantihiin kulli wada joognaayo waqti badan baa iskugu keen harsan dawada intaanu ku kulmi doono barnaamijka xiga aniga iyo farsamayaqaanka barnaamijka iyo guud ahaanba shirkadda Som Cable iyo soo internetka bixisa
oo weliba sanadkan aan idiin soo gudbinay idiin soo kordhisnay abka wadaag oo si toosa ciyaaraha adduunka aad uga daawan doontaan internetka shirkadda soo iyo telefoonadiina iyo tviyadiinaba intaynu barnaamijka ku xiga aan ku falaaqeyn doono markuu sida tooska u bilaabmo koobka adduunku waxaan ku dhaafanaa salaanta islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.